saacado kadib markii laga baahiyay idaacadda Risaale ee Muqdisho warbixin ka hadlaysa xaaladda ay ku sugan tahay hooyo Muumino Aadan Cali ayaa maanta waxaa la gaarsiiyay gurmadkii ugu horeeyay dadka Soomaaliyeed ee jooga dalka iyo dibaddiisa ayaa ka murugooday xaaladda ay ku sugan tahay hooyo Muumino waxayna u sameeyeen gurmad degdeg ah lacagihii uu maamulka idaacadda Risaale ka soo aruuriyay dhageystayaashiisa iyo lacago kale oo dibadda laga soo diray ayaa waxaa maanta hooyo Muumino loogu gaday raashin iyo agabyo kale oo ay u baahneed deeqdan raashinka ah ee maanta loo geeyay hooyo Muumino ayaa waxay ka koobneed bur bariis sonkor timir caanaha gasaca iyo lacag kaash ah oo gaaraysa 2 milyan oo shilinka Soomaaliga ah sidoo kale hooyo Muumino waxaa maanta loo geeyay gaarigii ay u baahneed oo ay horay u dalbatay ee ahaa midka ay isticmaalaan dadka lugaha naafada ka ah gaariga oo ahaa mid cusub ayaa lacagtii loogu gaday hooyo Muumino waxaa bixisay hooyo Soomaaliyeed oo warbixinta ka dhageysatay idaacadda Risaale ka balan qaaday inay gaarigaasi gadayso maamulka idaacadda Risaale iyo qaar ka mid ah howlwadeenada idaacadda ayaa maanta duhurkii waxay si kadis ah deeqdan u gaarsiiyeen hooyo Muumino iyadoo aysan filaynin ama aysan ka warheynin hooyo Muumino oo fadhiday banaanka hore ee qolka ay ka degan tahay gurigeeda oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxaa si lama filaan ugu tagay kooxdii ka socotay idaacadda Risaale ee deeqdan raashinka ah iyo lacagta iyo gaariga u waday agaasimaha guud ee idaacadda Risaale mudane Maxamed Cabdiwahaab Cabdullaahi ayaa sharaxay meelaha ay lacagtan ka timaaday waxaan soo gaaray gurmadka hadda aad arkaysaan oo aan soo gaarsiinay lacagihii la soo diray $50 dibadda laga soo diray iyo yar kale oo dad gudaha ay soo dirdireen markii la isu geeyay waxay noqdeen $93 taasoo aan u soo sarafnay oo shilin Soomaali ahaan u keenay sida arkaysaan ay gacanta ku haysato 2 milyan noqotay sidoo kale barnaamijka afur oo hal laba ajir lacagihii aan ku aruurinaynay waxaan uga soo goynay raashinka arkaysaan oo meeshan yaala oo haafka iyo saliidda iyo timirta iyo caanaha waxaan uga keenay asagana barnaamijkii afur oo hal ahay $50 kamid ah ugu soo gadnay raashinkaas dadkii ay arkeen oo daawadeen waxyaale ay u qabteen waxa kamid ah lacagtaas ay gacanta ku haysato oo soo sarafnay oo $93 noqotay iyo gaariga ay ku fadhido arkaysaan oo markii ay hadlaysa shalay ay codsatay inay gaari la'aanta gaariga uu ka halaabay maantana mid kamid ah maamulka Soomaaliyeed ay tiri anaa u iibinaya gaariga aniga liigu ogaado ayna soo dhiibtay lacagtii gaariga loogu soo iibiyay gaarigana maanta loo keeno aad arkaysaan inay haysato marka labadaas qayb oo qaybta lacagta shilin Soomaaliga ah oo ay haysato oo dadka ay soo aruuriyeen dibadda iyo gudaha iyo gaarigaas oo gabar kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed ay ugu deeqdo oo soo iibisay intaas shalay rafaadkeedii dadka arkay oo ka damqada uu soo gurmaday ana keenay ugu soo dhiibeen waana u keenay haddana balan qaado badan oo ay soo gaarsiiyeen jira waxaan rajaynaynaa markii warbixintan ay arkaan inay soo diri doonaan hadiyad ama abaalmarin lagu siiyo waxa ugu qiimo badan mid lagu siiyo adigoo aanan filaynin ama si kadis ah lagu soo gaarsiiyo hooyo Muumino Aadan Cali oo wajigeeda laga dheehan karo farxad sidoo kalena ku fadhida kursiga cusub ee loogu deeqay ayaa u mahadcelisay dadka Soomaaliyeed ee ka damqaday xaaladda adag oo ay ku sugan tahay magan alla oo haydeeran magan alla jisakala ilaahay abaalmarin faylasin kasi ajar iyo sanad un kooba maan ala siin kasi ilaahay siin gargaar siin ilaahay siin gargaar nin gargaartena magan alla jisakala haydeeran lacagtii oo lagu diibay oo $90 heedo lagu soo safiray yoona haysada waa 200 yoona haysada waa 2 milyan oo shilin Soomaaliya haya alaabtaan barnaamijka afur iyo hal laba ajiro ilaahay ajar iyo sanaadan kooba maan sharlaba laan fadhiyay alsiin gaariga gabar Soomaaliyeed ku soo iibisay ayada kaligeed jisakala ahsanta hooyo Muumino ayaa mar kale dadka Soomaaliyeed ka codsatay in dayactir loogu sameeyo guriga ay degan tahay sidoo kalena laga taageero sidii ay u heli lahayd bacaha roobka maadaama guriga ay hadda degan tahay uu yahay mid burbursan oo aanan roobka iyo dabeesha saa'idka ah iska celin karin guriga kama deganaha guriga sida oo golol iyo nay sariir iyo walaalay dhiban qaba madun magan alla jisakala ahsan walina halafadi ilaahay intii way geysiyeen
agaasimaha idaacadda Risaale Maxamed Cabdiwahaab Cabdullaahi ayaa ballan qaaday in lacag walba iyo agab kasta oo loogu deeqo hooyo muumino ay si sax ah u gaarsiin doonaan.